السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز عشر كي تحنا هنا يعني هو ترجمني برشلة علم باريس تعمل حلو يقان ريسيرش إن عشر كواحد يسوي جديد دونه أنا جواه شافعي شريف محمد بلا عكاية بدنا واحد نجس ساحد دونه صاحب كمر عربي هنا عشر كان وحنكو هالدونه محلو قيحة علم باريس علم باريس تا وريفرسمت لو أديك سدو وحبرشة تفسير الجامعة ده وأنا أريك كوبا لغا أري أو كلا علم إيه باريس أريغان مجرو قيحد لسكود راحسين هاي وحاسة جرتو قيحيسين كلا دون كساميان علم مدى كوحلير علم باريس تا عشر كانوا وحانو هالي دونا كود مهمسن اللي هو قيحة علم باريس تا علم باريس وعلميا لغو بارو حكت أوليه هاي موضوع قارة waxaa kaloo lagu qeexaa cilmi baaristu inay tahay nidaam lagu ogaanayo xaqiiqo cusub oo lagu soo kordhiyo qaybo ka mid ah cilmiga markaas jiro khubarada qaar ayaa waxay cilmi baaristu ku micneeyaan inay tahay aqoon lagu daafuraayo ama lagu ogaanayo aqoonta dahsoon ee jirto si lamid ah cilmi baarista waxaa lagu sheegaa inay tahay tallaabo kasta oo lagu ogaanayo waxa aan la ogeyn natiijadooda waxaa muhiim ah in la ogaado haddii arrin la ogyahay jawaabteeda ama natiijadeeda uma baahna in cilmi baaris lagu sameeyo cilmi baaris waxaa lagu sameeyaa oo keliya wixii aan la ogeyn natiijada kasoo bixi doonto markii la baaro kadibna la ogaanayo waxaa intaas dheer culimada qaar sida ninka loo yaqaano Woody cilmi baarista waxa uu ku sheegay inay tahay dhibaato jirto oo la ogaado la saadaaliyo la sameeyo xog ururin kadibna xogta la falanqeeyo ugu dambeyntii isbarbardhig lagu sameeyo natiijadii ka soo baxday soo markuu wuxuu leeyahay afar arrin ayuu sheegay waa marka koowaad dhibaatada in la ogaado la saadaaliyo kadibna xog ururin la sameeyo xogtii la faaqido xogta markii la analyze gareeyo wixii ka soo baxay isbarbardhig lagu sameeyo ayuu ku sheegay Woody dhinaca kale nin loo yaqaan Stevenson cilmi baarista waxa ku sheegay inay tahay nidaam lagu baarayo lagu saxayo ama lagu xaqiijinayo cilmiga jiro cilmi baarista waa tabaruca asalka ah ee aqoonta jirto iyada oo lagu horumarinayo cilmiga jiro sidoo kale waxaa lagu qeexaa cilmi baarista inay tahay cilmi baarista inay tahay in la raadiyo runta iyadoo loo baarayo si nidaam ah waxa la raadinayo waa wax run ah oo jiro oo la rabo in la ogaado iyadoo loo marayo hab nidaam ah kadibna natiijadii qaabka lagu ogaan karo cilmi baarista ayaa dhowr hab ah in la sameeyo wareysiyo in la sameeyo isbarbardhig iyo wixii la mid ah cilmi baarista waa habka xal loogu helayo dhib jiro ama taagan ugu dambeyntii cilmi baarista waa hab nidaamsan oo wax lagu baaro iyadoo la raadinayo aqoon cusub oo lagu soo kordhiyo midda jirto marka intaas oo dhan waa hab kala duwan oo lagu hadlay waxa ay tahay cilmi baaris haddaba qeexis ma jirto la isku wada raacsan yahay oo laga sameeyo cilmi baarista waxaase jiro qeexisyo kala duwan oo ay ka sameeyeen cilmi baarista aqoon-yahanada kala duwan ee ku xeeldheer cilmi baarista qaybtan kale waxaan uga hadli doonaa hadafka laga leeyahay cilmi baaristu maxay tahay hadafka uu kala duwanaan karaa waxaase ugu muhiimsan oo ay tahay in jawaab loogu helo su-aalaha aan la aqoon jawaabtooda hadday waxaan hore usoo sheegnay in aan loo baahnayn in cilmi baaris lagu sameeyo wax la ogyahay jawaabtooda haddaba su-aal kastoo aan jawaab loo haynin waxay u baahan tahay in jawaab loo helo iyadoo loo marayo cilmi baaris oo hab nidaamsan marka hadafka cilmi baarista waxa uu noqon karaa in jawaab loogu helo su-aalaha aan jawaabtooda aan la haynin waxaa kaloo noqon karaa in baaritaano lagu sida in baaritaan lagu sameeyo qaar ka mid ah xaaladaha hadda jiro ama dhibaato taagan si xal loogu helo haddii ay dhibaato taagan tahay dhibaatada xalkeedan aan la haynin waxaa loo baahay marka research la sameeyo xalkii la ogaado kadib ciddii wax ka qaban karto ama dowlad ha ahaato ama shakhsiyad ha ahaado arrintaas ayaga ay wax ka qabtaan haddaba cilmi baaristu waxay tahay in dhibka jiro xalkiisa ay soo hesho laakiin ma aha inay iyadu ay xaliso in la sahmiyo ama la falanqeeyo arrin guud midda saddexaad in la sharaxo arrin ugub ah midda afraad in la dhaliyo aqoon cusub oo aan hore loo haynin midda shanaad in la tijaabiyo oo sadal laga bixiyo xiriirka ka dhaxeeyo doorsoomayaasha ama wax loo yaqaano
hypothesis tests ugu dambeyntii labo ama in ka badan intii aan kor kusoo sheegnay haddaba cashirkeena ku saabsanaa maxaa lagu qeexaa cilmi baaris hadafka laga leeyahay cilmi baaristana wuxuu inooga egyahay intaas tani intaa dib daba ugu kulmi doono waa anigoo ah Shaafici Shariif Axmed iyo kaamirmaanka Cumar Arrimaheena hada bilaa tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh